Islam my deen. Allah my Lord, His word Quran, Muhammad Prophet, praise be upon. I'm a Muslim for all of time. I am a Muslim. Islam my deen. Wadayaal ku soo dhawaada shabakada warbaahinta calanka iyo TV-geeda waxaanu ku suganahay daawadayaal xafiiska kafaala ee magaalada Oslo aynu rabnay inaan waraysi kula yeelano mas'uul kamid ah mas'uuliyiinta kafaalo Mukhtaar ku soo dhawow shabakada warbaahinta calanka iyo TV-geeda adiga oo nooga warbixinayo kafaala 2013 ee soo baxay buuga waxa uu xambaarsan yahay wari wiil jalaqsi waa mahadsan tahay kafaalo magazine 2013 uu soo baxay qaybtiisa online ka ahayd sida halkan kaaga muuqataba waxaan soo saarnay xalayto oo warbaahintaan u soo gudbinay qaybtiisa daabacaadana isbuuca soo socda ayay banaanka imaanaysaa waa tahay Mukhtaar buugga maxaa gudihiisa ku qoran oo aad noo dul maraysaa muxuu ka hadlayaa muxuu quseeyaa ma buuggii hore ee soo bandhigtay inuu la mid yahay mise wax badan oo ka duwan yahay kafaala magazine 2013 kii hore kafaala magazine 2012 waxyaalo dhowr ah kaga duwan yahay waxaa kamid ah laba dhinacba dhinac wuxuu kaga duwan yahay mowduucyada ku qoran midkii hore mowduucyada ku qornaa waxay u badnaayeen Soomaalida Yurub guud ahaan gaar ahaan Soomaalida Norway xagooda nolosha xagooda waxbarashada tirakoob guud Soomaalida Yurubta galbeed ku dhaqan oo dhan waxa la oran karaa wuxuu ahaa mid saameynaya oo aad u falanqeynaya Soomaalida Yurub ku nool laakiin midkan wuxuu kaga duwan yahay mowduucyadiisa waxay yihiin mowduucyo wada saameynaya Soomaalida dhan ama guud ahaan bini'aadamka oo dhan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay mowduucyadaas waxaa kamid ah wuxuu ka hadlayaa waxyaalahan horumarka waxbarashada tarbiyada caruurta qaabka caruurta wax loo bari karo waxbarashada iyo fursadaheeda kala duwan ama macallimiintu say dadku wax u bari karaan waxaa kamid ah waxyaalahan dareenka iyo xakameyntiisa qaybo kamid ah oo qofka bini'aadamka u baahan yahay inuu ka hormaro ama waxyaalahan loogu yeero emotional intelligence wuxuu ka hadlayaa science-ka iyo quraanka sida ay wax meelo badan iskaga waafaqayaan wuxuu ka hadlayaa dhaqaalaha wuxuu ka hadlayaa ganacsiga iyo fikrado badan oo qof markuu intuusan ganacsi bilaabin sida uu ganacsi u bilaabi lahaa wuxuu ka hadlayaa waxyaabo mowduuci la yiraahdo ma ogtahay oo qofka Soomaaliga siinaya macluumaad badan oo asaasi ah oo dunida waxyaalo badan oo ka dhacay uu ku fahmayo sida tusaale ahaan 2008 dhaqaalihii dunida burburkii dhaqaalaha dunida la soo dariyay waxyaalo badan oo maxaa sababay maxay ku bilowdeen waxyaalaha asaasiyaadka ah oo qofka haduu fahmo u fududeynaysa inuu waxyaalo badan uu yaani markuu macluumaadkooda maqlo uu si fahmo marka magazine-ku waxyaalo mowduucyadaas uu kaga duwan yahay kii hore dhinaca labaad uu kaga duwan yahay waxa kamid ah muuqaalkii hore kan uu ka yara qurux badan yahay xag design uu ka muuqaal ahaan mowduuci ahaan waqti fara badan ayaan gelinay qaabka u soo bixi lahaa ama u muuqan lahaa annagu ku dadaaleyna inaan kula tartano magaazinada caalamka tayada iyo xagga quality-ga marka dhinacyadaas labada dhinac buu guud ahaan kaga duwan yahay oran karnaa waa tahay Mukhtaar kafaala magazine maxaa la is oran karaa kaalinta uu ka gali karo magazinada kale caalamka ka jira xagee baad leedahay uu gali karaa tayadiisu oo mahadsantahay walaal runtii waxaan aad iyo aad aan u tiigsanaynay ama xoog u saareynay in uu kafaala magazine barbar dhaco ama uu la mid noqdo kafaala magazinada caalamka sida midkan National Geographic soo baxa sida midka wadamadan kuwa ka soo baxo Illustrated Vitenscape ama Illustrated History la yiraahdo oo magazine science iyo cilmi u badan waxaan oran karnaa marka runtii kii hore midkan waxaan ku dadaalnay inuu tayo ahaan xagga design-ka xagga quality-ga tayada waraaqda qaabka ay wax u qoran yihiin cinwaanada inuu horta la mid noqdo ama ku soo dhawaado oo magazinada sanado badan iyo qarniyo jira ay yihiin dhinaca mowduucyada waxaan sidoo kale ku dadaalnay inuu sidii u cilmiyeysan yihiin si la mid ah uu cilmiyeysnaado waayo waxa maqaalada ku qoran iyo mowduucyada qoray rag Soomaaliyeed oo iyo walaalo kale oo gabdho Soomaaliyeed oo qaarkood doctor ah qaarkood aqoon u leh waxyaalaha ay ka hadlayaan marka waxaan oran karnaa runtii magazine Soomaaliyeed ahaan aad buu la tartamaya ugu dhawaaday markaan inuu barbar dhaco magazinadaas caalamiga ah ee aad kala akhristo waa tahay kafaala magazine yaa ugu tala gasheen oo u soo saarteen
كفالة ماجازين waxaan ugu talagalnay gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhamaantood luqadda Soomaaliga ku wada hadla guud ahaan waxaan oran karnaa dadka badanaa waxbarashada ka warqaba ardayda jaamacadaha dadka jaamiciyiinta ah dadka mas'uuliyiinta ah ee ururada haya dadka mas'uuliyiinta xagga dawladaha dadka jecel inay dhagadhagayaan waxyaalaha cilmiga iyo xaqiiqda ku saleysan dadku waa laga yaabaa macluumaad fara badan oo soo gaaro macluumaadka qaarkiis waxa laga yaabaa inuusan xaqiiq ahaan laakiin kan waxaan ugu talagalnaa oran karnaa qof walba Soomaaliyeed oo doonaya macluumaad xaqiiq ah oo cuskanaya cilmi iyo waxyaalo ay la falanqeeyay oo la hayo dhacdooyinkooda cilmiyeysan ama taariikhiyanba dadkaas aan ugu talagalnay laakiin waxa si gaar ah uga faa'iideysan kara ardayda jaamacadaha ku jirta ee jecel inay waxyaalo badan oo sida cilmiga dhaqaalaha cilmiga sayniska cilmiga taariikhda waxyaalo badan inay ka faa'iideystaan ama ay asaasiyoodkooda soo fahmaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhanna aad bay uga faa'iideysan karaan ugu dambeyntii Mukhtaar xagee laga heli karaa Kafaala Magazine oo dadku u sahli karta inay ka iibsadaan ama ay ka helaan Kafaala Magazine waxa laga heli karaa laba qaab baa loo heli karaa qaab koowaad waxa weeye qaab qofku inuu helo daabacaad ayadoo waraaq ah wuxuuna ka heli karaa xafiiska Kafaala inuu ka soo dalbado wuxuu kaloo ka heli karaa dukaamada Soomaaliyeed iyo meelaha Soomaaliyeed maktabadaha caanka ah ee ku yaala Oslo Stockholm Göteborg Copenhagen iyo wadamada Yurub oo kale wadankana waa u diri doonaa insha Allah taala sidoo kale waxa laga heli karaa library-yada wadamadan Scandinavian-ka ah Norway Sweden iyo Denmark waliba qofka Soomaaliga ay tuulo degan fog ama meel kale degan hadii uu library-giisu magaaladiisa u tago uu yiraahdo waxaan u baahanahay Kafaala Magazine 2013 waxay dhacdaa library-yadu inay nala soo xiriiraan ay qofka u soo dalbaan ayadoo wax qarash qofka laga qaadin saas oo kale sanadka hore Finland library-yadu ku yaalo way soo dalbadeen dad Soomaaliyeed baa ka dalbaday waana loo gudbiyay wuxuu qofka heli karaa online qofka haduu galo bogga kafaala.com oo uu click siiyo sawirkan Kafaala Magazine halka ka muuqda wuxuu imaanayaa bog uu si toos ah sidii joornaal caadi ah uga akhrisan karo Kafaala Magazine marka afarta bog hore ayaa qofka marka hore u soo baxaysa soo wada akhris marka uu qofka taabtaa inuu yaani arko full version-kiisa inuu soo baxo kadib qofku wuxuu sameeysan magac iyo email iyo password oo asaga markaa sameysanayo kadibna wuxuu leeyahay iibso xabataan waana xabadiina waa $6 kaliya ama 25 kron lacagahan Scandinavian-ka kadibna qofku wuxuu leeyahay sign up waxa uu soo baxaya bog uu markaas ku bixin karo $60 kadibna magazine-kii oo dhan baa u furmaya uu ku akhrisan karaa online laakiin qofkii raba inuu caadi u akhristo ونلا soo xiriiri karaa boostadan soo dhigayna marka labada qaab uu qofku u heli karaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa wadanka laftigiisa iyo inaan gaarsiino sidoo kale inaan gaarsiino qaaradaha kale aan North America waxaan kaloo gaarsiin doonaa Aasiya iyo Afrika qaybaheeda kale Oslo gaar ahaan ama reer Norway dukaamada Soomaalida ay ku yaal magaalada Oslo dhamaantood insha Allah taala qofku ka heli karaa masaajidka Tawfiiq maktabadiisa qofka halka uu ka iibsan karaa marka meelo badan baa lagu iibiyaa weydii dukaamada Soomaalida insha Allah taala waa ka helaysaa waa tahay kaas wuxuu ahay Mukhtaar Qoransey mas'uulka Kafaala Magazine ee magaalada Oslo waa anigoo ah wariye wiil jallaqsi halka aad ka daawaneysaan waa shabakada warbaahinta calanka iyo TV-geeda بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة